السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkayga muslimka ah iyo walaashayda muslimka ah ma doonaysaa inaad noloshaada bedesho? haddaba waxaan kula wadaagi doonaa talo iyo nasteexooyin kuwaas oo ka caawin doona wax badan inaad noloshaada guul gaadho. ku soo dhawow warfaamin YouTube. nasteexada koobaad ama talada koobaad, ma doonaysaa inaad noloshaada adigu bedesho? haddaba ahaw mar walba qof Allah ku xiran subxaanahu wa ta'ala, waayo Allah ayaa adduunkan maamula. Allah ayaa subxaanahu wa ta'ala wax walba oo adduunka dushiisa saaran Allah ayaa quudiya subxaanahu wa ta'ala. haddii aad doonaysid noloshaada inaad guul gaadho, haddii aad doonaysid noloshaada inaad farxad ku noolaato, haddii aad doonaysid noloshaada inaad horumar fiican gaadho, ahaw qof mar walba Allah ku xiran subxaanahu wa ta'ala. talada labaad ama nasteexada labaad, ma doonaysaa inaad noloshaada adigu bedesho? haddaba ahaw qof naftiisa ku kalsoon. haddii aanad naftaada ku kalsoonin, waxaa jira cadow fara badan oo kaa hor istaagi doona guulahaaga. waxaa jira cadow fara badan oo ka oran doona ma gaadhisid guushaada. waa inaad ahaataa qof mar walba ku kalsoon naftiisa. waa inaad ahaataa qof mar walba ku kalsoon naftiisa haddii aad doonaysid inaad guul gaadho. waa inaad tahay qof cadowgiisa iska difaaci kara. waxay ka oranayaan gaadhi maysid guushaada, way kaa shaki gelinayaan. haddaba haddii aad doonaysid inaad noloshaada isbeddel ku samayso, ahaw qof mar walba naftiisa ku kalsoon. nasteexada saddexaad ama talada saddexaad, ma doonaysaa noloshaada inaad adigu bedesho? haddaba isku day mar walba inaad noloshaada isbeddel samayso. isbeddelku waa gaadhiga ku riixaya mustaqbalkaaga inaad gaadho. haddaba isku day halkaad maanta taagnayd inaanad berito la taagnaanin. ma jirto cid inta ku imaatay isbeddel kuu samaynaysi, laakiin isku day inaad adigu naftaada isbeddel u samayso. talada afraad ama nasteexada afraad, ma doonaysaa inaad noloshaada adigu bedesho? haddaba lahaw adkaysi iyo dulqaad. qof walba oo guul gaadhay waxaa la sheegaa inuu rafaad badan soo maray. dabcan waa qof adkaysi iyo samir lahaa. haddii aanad adkaysi iyo dulqaad iyo samir lahayn, kama gudbaysid caqabadaha nolosha. haddaba haddii aad doonaysid inaad noloshaada guul gaadho, haddii aad doonaysid inaad noloshaada bedesho, la imo adkaysi iyo samir si aad uga gudubto caqabadaha ku hor yaalla ee nolosha. mana jiro adduunka qof aan samir lahayn oo guulaystay. ugu yaraan waxa ku soo maraysa intaasoo caqabadood noloshaada. haddaba si aad waxaasoo dhan uga gudubto, waa inaad la imataa adkaysi iyo dulqaad. nasteexada shanaad ama talada shanaad, ma doonaysaa inaad noloshaada bedesho? haddaba ahaw qof mar walba dhanka fiican wax ka fiiriya. haddii aad tahay qof dhanka xun wax ka fiiriya, lagama yaabo noloshaada inaad guul gaadho. mar walba isku day inaad dhanka fiican wax ka eegtid. adduunyada waxaa jira shayaal badan oo fiican. haddii waxaasoo dhan adiga ku muuqan waayaan, waxay keenaysaa inaad adigu guul gaadhi kari weydo. isku day wax walba oo xun inaad dhanka fiican u samaysid. isku day inaad wax kasta oo ceebihiisa qarisid, wanaagiisa soo bandhigtid.